guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba. Dad badan waxyaabaha caafimaadkooda ku saabsan aad ayay u asturaan. Ma rabaa in wixii caafimaadkooda ku saabsan ay qof kale kala hadlaan, takhtarka xitaa, ama in kaalmo ay weydiistaan. Waxaa dhici karta in dadka kale in maskaxdooda ku degan tahay in takhtarkoodu kala hadlaan caafimaadkooda. Haddiiba uu yahay takhtar ay jecel yihiin oo ay aaminaad ku qabaan, takhtar xishmeynaya oo daryeelaya waxay qiimeynayaan iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin. Takhaatiirta qaarkoodu aad ay u mashquulsan u yihiin oo bukaan socodka waxay dhici karta inay dareemaan in takhtarku uusan dhegaysanayn ama degdegsiyo ku jiro. Laakiin takhtarka wanaagsan wuxuu qaataa waqti uu wax ku dhegaysto, uu su'aalo ku weydiisto. Wuxuu isku dayaa inuu fahmo wax kasta oo adiga muhiim ku ah ee caafimaadkaaga ku saabsan. Wuxuu isku dayi doonaa in adigu kula dhiso xiriir is-aaminaad. Laakiin adiguna sidoo kale waxaad u baahan tahay in qaybtaada aad ka qaadato. Adiga bukaan socod ahaan 5 mas'uuliyad ayaa ku saaran. 1. Wada hadal. Waxaa waajib kugu ah in si run ah oo buuxda aad takhtarka uga sheegto dhammaan wixii walaac ah ee dhanka caafimaadkaaga ah. Isagu waa baare oo isku dayaya inuu ururiyo dhammaan wixii calaamado ah oo isku dayaya inuu soo saaro wixii caafimaadkaaga ka qaldan. Haddii isagu aadan ula qaybsan wixii xog ah, shaqadiisa aad ayay ugu adkaanaysaa oo waxaa dhici karta inuusan fahmin waxa adiga ku jirisiinaya. Sidoo kale, isagu waa inaad u sheegtaa himilooyinkaaga, daryeelka caafimaadkaaga, iyo waxyaabaha adigu aad qadariso ama waxyaabaha adiga aad aaminsan tahay. Wuxuu u baahan yahay inuu wax ka ogaado xanuunadaada iyo qaliinadii hore, daawooyinka aad qaadato, haddii ay jiraan dad kale oo qoyskaaga ka tirsan oo xanuunsan, ama haddii aad isticmaasho mukhaadaraad ama khamri aad cabto. Su'aalahan qaarkood waxaa dhici karta inay u muuqdaan in adiga ay kuu gaar yihiin ama aysan habboonayn in laga wada hadlo. Laakiin takhtarkaagu xogta wuxuu ugu baahan yahay si adiga uu kaaga caawiyo caafimaadkaaga. Lambarka 2. Su'aalo weydii. Waxaa waajib kugu ah in su'aalo aad weydiiso haddii ay jiraan waxyaabo adigu aadan fahmayn oo takhtarkaaga adiga uu kuu sheegayo. Doqonnimo ha dareemin. Doqonnimo ma aha haddii aadan aqoon jawaabta su'aasha. Goorta takhtarka aad booqato, isku day in aad ku soo celiso wixii takhtarka uu sheegay oo adiguna aad isleedahay waan maqlay. Marmarka qaarkood wuu ku sixi doonaa oo taa wax wanaagsan, maxaa yeelay markaas waxaad haysataa xog sax ah. Inta booqashada takhtarkaaga aad ku guda jirto, ugu yaraan weydii 3 su'aalood. Maxay yihiin dhibaatadayda ugu weyn? Waa maxay waxa aan u baahanahay inaan sameeyo? Maxay tahay sababta ay muhiim u tahay inaan sidan u sameeyo? 3. Tixgelin muuji. Mas'uuliyadda ku saaran ayaa waxay tahay in takhtarkaaga aad tixgeliso. Tan micnaheedu waxay tahay waa in ballan aad takhtarka ka samaysataa. Ballanta xusuus qorkaaga ku qor ama taleefankaaga gasho si aadan u ilaawin. Ballantaada u diyaar garow adiga oo horay u sii qora ifafaalooyinkaaga
su-aalahaaga iyo daawo kasta ee aad qaadato. Maalinta ballantaada wakhtiga laguu qabtay ku imow. Tan tixgelin ayay takhtarkaaga tusaysaa, kaasoo bukaan socod badan ku mashquulsan. Mas-uulada ku saaran ayaa waxay tahay in takhtarkaaga si tixgelin aad u dhegaysato, laakiin waad weydiin kartaa wixii su-aalo ah. Waxba ma dhibayaan in takhtarkaaga aad su-aal weydiiso haddii aadan ku raacsanayn ama aadan fahmin. Adiga iyo takhtarkaaga si wadajir oo tixgelin leh ayaad u wada hadli kartaan oo isku raaci kartaan sida ugu wanaagsan ee lagugu daryeeli lahaa. 4. Tilmaamaha raac. Mar haddii adiga iyo takhtarkaaga aad isku raacdaan qaabka ugu wanaagsan ee caafimaadkaaga loo daryeeli lahaa, waxaa mas-uuliyad kaa saaran in qorshaha la dejiyey aad raacdo. Tan macnaheedu waxay tahay haddii takhtarkaaga uu daawo kuu qoro, waxaad u baahan tahay in sida lagugu qoray aad daawada u qaadato. Haddii takhtarkaaga uu kuu sheego in jimicsi aad samayso ama aad nasato, waxaa mas-uuliyad kaa saaran in qorshahan aad raacdo. 5. Bixinta biilka. Waxaa waajib kugu ah inaad bixiso lacagta daryeelka caafimaadkaaga. Haddii adigu aadan awoodin in lacagta aad iska bixiso, waa in takhtarkaaga aad kala hadasho waxa aad ka yeeli lahayd. Waxaa mas-uuliyad kaa saaran in shaqaalaha xafiiska takhtarkaaga aad siiso wixii xog ah ay u baahan yihiin sida adeegyada ay bixiyaan lacagteeda u helaan. Daryeelka caafimaadka ee gobolka Missouri waxaa dhici karta inay ka duwan tahay wixii adiga aad horey u baratay. Waxaad xaq u leedahay in daryeel caafimaad oo tayo leh oo gaara aad ka hesho takhtarka aad doorato, laakiin adiga ayay ku saaran tahay mas-uuliyad in takhtarkaaga aad ula wadaagto xog oo takhtarkaaga aad tixgeliso tilmaamaha uu ku siiyo, aad raacdo oo lacagta daryeelka caafimaadkaaga aad iska bixiso. Takhtarka wanaagsan adiga iyo caafimaadkaaga ayuu daneeyaa. Wuxuu rabaa inuu kaa caawiyo inaad ku noolaato nolol dheer, nolol caafimaadaysan, laakiin wuxuu adiga kaa rabaa in adigu mas-uuliyad aad iska saarto caafimaadkaaga. Sidoo kale waxaa muhiim ah in si wadajir ah aad uga wada shaqaysaan si loo dhiso qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.